dalal kala duwan ayaa ku soo biiray isbahaysiga weyn ee garab taagan dhanka Soomaaliya iyadoona wadamadaasi ay diyaariyeen ciidan fara badan. Durba waxaa soo baxaya isbahaysi xooggan oo ay dalalkaasi sameynayaan iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya markan ay bilaabeen qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka ugu weyn ee looga hortagi karo danaha Israa'iil ee ka leedahay dhanka Geeska Afrika. Mas'uuliyiintan ayaa waxay durba bilaabeen in la xoojiyo iskaashiga guud ee la xiriira dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga iyadoona arinta shidaal qodista iyo howlaha kala duwan ee socda la dhinac wadi doono arinta ku aadan in la difaaco dalka loogana hortago isku day walba oo ka imaan kara dhinaca Israa'iil iyo xubnaha kale ee xulafada la ah sida xaqiijiyad ila wareedyo kala duwan. Warbaahinta Xuraansi ayaa waxay dabagal ku sameysay warbixinadii gaarka ah ee saacadii u dambeeyay laga qoray arrimahan iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin kala duwan ay tilmaameen in dhaqdhaqaaqyada guud ee socdayeen kuwa diiradda lagu saarayo waxaana dowladda Turkigu ay bilowday qaabka ugu fudud ee ay u sameyn karto diyaaradaha iyo howlgallada gaarka ah oo ay ka fulinayso gudaha Soomaaliya. Sargaal sare oo ka tirsan dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladdu ay wado dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimahan iyadoona arrimahaas oo idil lagu gaari doono qaabka ugu fudud ee dowladda Soomaaliya ku saldhigi karto qorshahan sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo kala duwan. Sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Turkiga ee dhanka badda ayaa tilmaamay in dowladoodu ay guud ahaan ay gaari doonto dhaqdhaqaaqyada guud ee siyaasadeed iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dhanka Ankara ay tilmaameen in ay wadaan abaabul xooggan oo la xiriira arrimahaasi. xubno firfircoon oo ka tirsan dhanka iyo Turkiga ayaa waxay dhankooda sheegeen in saacadii u dambeeyay abaabulka iyo qorshahaas uu ahaa mid diiradda lagu saarayay isla markaana xaaladdu ay ahayd mid taagan iyadoona maalmihii u dambeeyay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka loo gaari karo howlgallada hadda socda sida ay wadaan saraakiisha iyo mas'uuliyiintan ka tirsan dhinaca iyo dowladda Turkiga. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay heshay isbahaysi xooggan kaas oo tijaabadiisii ugu horeysay dhabarka ka jabiyay dhanka iyo howlgallada tooska ah ee Imaaraadka Carabta oo ku lahaa dhanka Soomaaliya. qaybta labaad dowladda federaalka Soomaaliya waa taageerada ay ka heshay shirkii golaha maaka qaramada midoobay January 2026 ka dhacay wadanka Mareykanka iyadoo xilligaas Soomaaliya ku taagsatay danjirihii Israa'iil ka socday ee doonayay in aqoonsiga Israa'iil ee dhanka Somaliland halka la geeyo. waxaa kaloo jira in madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro laga hor istaagay ka qaybgalka shirkii dhaqaalaha looga hadlayay arrimaha guud markii uu shirkaas ka qaybgeli waayeen culays xooggan uu ku noqday in uu farsamo adeegsado isla markaana uu la kulmo madaxdii kala duwaneed laakiin waxa uu la hadlay xubno ka tirsan dhanka Israa'iil iyadoona ugu dambeyn ay sameeyeen in ay xubnahaasi kala shaqeeyaan qaabkii uu la kulmi lahaa madaxweynaha maamulkaasi iyo sidoo kale wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo aan cirbad xataa dunka gali karin marka la eego qorshaha siyaasadda aabihii iyo Geeska Afrika qaabka uu wajahayo. Mareykanka ayaa Geeska Afrika waxa uu soo diray erga sare kuwaas oo ka shiri doona qaabka wadamadan Afrika iyo guud ahaan caalamka intiisa kale ay dhinac ugu soo jeesteen marka la eego isku dayga Israa'iil isagoo sheegay in Mareykanka waa madaxweyne Trump in uu mar walba mowqifkiisa taagan yahay isla markaana uu diidan yahay in xilligan la kala jaro Soomaaliya maadaama culaysaadka badan dunida ka jira uu sii kordhayay sanadba sanadka ka dambeeya. Iiraan muhiim ah ayaa dhanka kale waxay sheegeen in dowlado dhowr ah ay ku cadaadinayaan sidii Israa'iil arrintan ay ugu laaban lahayd laakiin ay u sheegeen diblomaasiyiin ka tirsan dhanka maamulka Netanyahu qaabka ugu fudud ee looga laaban karo inay tahay inay ka aamusaan hoosna u dhigaan dadaalada kala duwan waxaana gebi ahaanba la baajiyay safarkii Cabdiraxmaan Ciro oo ku tagi lahaa magaalada Tel Aviv iyadoona ujeedka ay tahay sidii arrimahaasi guud cadaadiska xooggan ee koray fashilka degdega ah ee ku imaaday qorshihii Imaaraadka oo laga xidhiidha siibay wadamo Soomaaliya ka mid tahay isbahaysiga cusub Sacuudiga Masar iyo wadamo kale oo saaxiibo dowladaha Israa'iil ay sameysteen oo guud ahaan fahansan godka uu galayo guriga ku hoyanayo iyo sidoo kale wax walba oo ku aadan arrintaasi in ay sameeyeen dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabkii loo soo afjari lahaa taasoo keentay
in ra-iisul wasaare Netanyahu uu markaan ka cagagaabsado arrimaha guud ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada geeska Afrika. Wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku mahadsan tahay daawashadii la socodka janaalkayaga.